maraynay cadaadiskii muslimiinta lagu hayay iyo nimankii mushrikiinta ahaa oo bilaabay doodo badan oo ay kala soo horjeedeen saxaabada oo ay isku dayeen inay tashkiik ama shaki geliyaan dadku wuxuu aaminay ama caqiidadii islaamiga uu nebigu ula yimi calayhi salaatu wasalaam. waxyaabahaasi muranka badani ka dhacay maalan waxaa ka mid ahaa baynu soo tilmaamnay dhowr shay. waxaa kaloo ka mid ahaa baynu leenahay suuratu ruum maalan siduu xadiidkii tirmidi sheegayo markay qeybta hore soo degtay ee suuratu ruum alif laam miim gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin. suuraddaas markay soo degtay qeybteedaasi hore oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo ruum in la jebin doono oo fii adna alard lagu jebin doono kadib intay guulaysteen muddo dhowr sannadood gudahooda. waxay noqotay runtii saadaalin aada u cajiiba. qur-aankuna nubuu'aadkiisa waxaynu maalintii dhaweyd soo tilmaamnay nubuu'addii suuratu tabat yada abilahabin watab aynu nidhi waa nabuu'a sheegaysa qur-aanku uu ku tilmaamayo inaanu abilahab weligii rumaynayna ahlu naarna inuu noqonayo siduu alla u sheegayna way u dhacday iyadoo gaalo kaloo badani joogtay oo iyagu qaar badan oo ka mida ay soo islaameen. tanna waa wadcigii caalamka markaa ka jiray labadii dowladood ugu xooga roonroonaa oo midna ay tahay dowladdii romanska la odhan jiray albizantiyiin midna ay tahay dowladdii iraniyiinta ama bershiyanka la odhan jiray oo labadii dowladood ee caalamkii markaa la yaqaanay u xoog badnaaya colaad weynina ay ka dhexayn jirtay oo labadan dowladood aad bay isu hayn jireen colaad weynina way ka dhexaysay ayaa waxaa la jebiyey romanskii dhulkaa urdun ay hadda ku taalla agagaarkeeda lagu jebiyey jab aada u xun. waxay dadka wax indha-indheeyaa markaasi u arkayeen inaanu jabkaa dabadeed soo kacaynin romanisku waxaana aada u xoog bato aada u muuqday dowladdii bershiya ama iraniyiintii waxaana la islahaa dib usoo laabmi mayso taa romanisku. saadaalina aada u fog bay ahayd in la yidhaahdo wadcigay markaa ku jireen iyo noloshay joogeen iyo sidii loo jebiyey iyo dhibtii ku dhacday iyo waxaa in la yidhahdo mar dambe ay soo noqon doontaa ay wax qabsan doontaa. qur-aan baa cirka ka soo degaya ilaahay leeya way soo noqonayaan iyagaana wax qabsanaya. qurayshi markaa waa ku istihzaado waa ku qososhay muslimiintan kule romaniskaa laga takhallusay baa mar labaad imanaya aad bay ugu qosqosoleen. dabeetna waxaa la yidhahdaa muranku wuxuu dhex maray abibakar iyo koox mushrikiinta ka mid ah. markii dambe waxay ku heshiiyeen inay rihaan dhigtaan inay sharatamaan oo ciddii sharadkaa laga helaa xoolaa in laga helo. fi shariica hadda waktigan aynu joogno sharatankaasi ma banaana laakiin intii aanay taxriimku soo degin ayuu ahaa. dabeetana wuu la sharatama in la jebin doono nimankaasi romanska ah sida qur-aanku sheegaya inay sax tahay iyo inaan waxba ka jirin. rihaankaasi sidii qur-aanku sheegaya ayay u dhacday oo waxaa la jebiyey nimankii romanska ahaa mar dambe ayay wax jebiyeen. waxaad moodaa inay kaloo la isku hayay fikrad odhanaysa kristanka oo markaasi uun dee dad lagu tirinaya inay alla rumaysan yihiina iyo nimankan kale bershiya oo iyagu qolada sanamka caabuda ah oo asnaamta ka tirsan oo aad moodo mushrikiintu xagga asnaamta inayna siyaasiyan taageerayeen oo u arkayeen xoog badnida asnaamtu ay xoog badataa inay dani ugu jirto muslimiintuna inay dhinaca kale taageerayeen. iyo iyadoo jaziira alcarabiya gaar ahaan magaalada maka la yidhaahdo aynu nidhi waxaa ka jiray maka dhul baac mushtar bay ahayd markaa siyaasadda duwaliga ee dabaddu in badan ayay u fiirfiirsanayeen waayo maadaama tijaaradoodu nabadgelyada ay ku salaysnayd waxaa halkana la jebiyey subxaana wa tacaala markaasi nimankii bershiya la odhan jiray wa yowmaidin yafraxu lmu'miniintii baa dhacday. cadaadiskii muslimiinta lagu hayayna wuu sii tiro batay. waxaa bilaabmay wakti uu nebigu u ogolaado saxaabadu inay hijrooto maka inay iskaga tagaan. wuxuu u ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay u hijroodaan dhulkii xabashada. hijrada xabashida loo hijrooday laba goor ayay dhacday mar hore iyo mar labaad si ay culammadu isku waafaqsan yihiin ama bukhaariba siduu soo aroorinayaan rajaynaya.
labada goor ay dhacday marka hore waxaa la yidhahdaa waqti sii yaro horraysay bay ahayd kutubi taarikh waxay sheegaan sanadkii shanaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam soo bixiisa meelahaas buu ahaa dadka hijroodayna nin kastoo aynad sanad saxiixa ku haynin laakiin sida waaqidi iyo ibnu isxaaq midba laba riwaayadood oo iskhilaafsan ay sheegaan ibnu isxaaq wuxuu ku sheegaa 10 raga iyo 4 dumara inay haayeen waaqidina si sidaa ka yara gedisan buu ku sheegaa waa 11 nin iyo 4 dumara inay haayeen yani hal nin baa difference u dhexeeya markaynu isku darno waa dhowr iyo 10 qof waxaa la tilmaamaya inay hijrada hore hijroodeen weliba riwaayadaasi ahlu taariikhu ay wariyaan inaynu nidhi sanad xooggan uma hayno waxay kusii sheegaan in ay doon ku kiraysteen nisfu dinaar ama dinaar badhkii inay doon ku kiraysteen dinaar badhkii waa ilaa 2 garaam oo dahaba meelahaas ay ugu raaceen dhulka xabashida markaynu eegno riwaayadda saxiixa ee soo aroortay maalan ama isnaad xasana qisada uu ku soo aroorinayo ibnu isxaaq laftiisa iyo ibnu hishaam siiradiisaba ku taalla isnaadkaasi xasankaa waxa ay tilmaamaysaa umu salama oo sawiraysa umu salama oo ummahaatulmu'miniinka ka mid ah oo sawiraysa hijradaasi siday u dhacday umu salama waxay ka mid tahay dadkii koowaad ee hijrada koowaad ka qayb galay waxay leedahay markii dhulku nagu cidhiidhiyoomay markay nagu cidhiidhiyoontay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii la imtixaamay ee la fitmeeyey ee uu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhib ku dhacaysa saxaabada ee diintooda loogu geysanayo daraaddeed ee rasuulkuna uu awoodi kari waayey inuu wax ka celiyo isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku jira bay tidhi fii manacati qawmi ama tolkii ay wax ka celinayeen oo isaga abi aalib baa markaa noolay oo aan tiisa dadka lagu dulminin falxaquu bibilaadi dhulkiisa kaa gaadha buu nebigu ku yidhi xataa yajcala allahu lakum farjan wamakhraja mima antum fiih xataa yajcala allahu lakum farajan wamakhrajan ilaa iyo alle subxaana wa tacaala idinka yeelayo faraj ama uu idiin furayo albaab iyo meela ka baxdaan waxaan dhib idin haysa intaa meela ka baxdaana laydin yeelayo sidan yeela yani nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbaanu rabin in saxaabadiisa la tirtiro ama isti'saal lagu sameeyo quwada quraysheed ama xoogga quraysheedna wuxuu isku dayay inay dadkan gaar ahaan dadka ducafaa'ul qowmka qasab in diinta lagaga celiyo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wadcigii dunida ee agagaarkiisa duwalkii ka jiray markuu indhaindheeyey wuxuu tilmaamay boqorkan xabashidu inuu uga cadaalad fiican yahay oo romaniskan iyo bershiya iyo kuwa kan inuu ka cadaalad fiican yahay boqorkan xabashiyeed oo markaa iyagu masiixiyad haystay ama nasraano ahaa diintan nebi ciise uu nisbe sheeganayay wuxuu yidhi ninkaasi cadaalad baa agtiisa taalla culammaduna waxay idhaahdaan dawlad islaamah oo dulmi samaysa boqortooyadoodu way zuushaa laakiin xataa hadday kaafirato cadaaladda leedahay cadaaladdu waxay ka mid tahay waxyaabaha mulkiga ama boqortooyada ama maamulka dib u dhigay inay suusho iyagoo aayad qur-aana u daliishanaya idan alkufr maca alcadaala yaduun bay yidhaahdaan gaalnimo cadaaladi la socoto mulkigeedu wuu waaraa laakiin islaamnimo dulmi uu la socdaa ma waarto adoo muslima haddaad xagga dulmiga u xigto cadaaladda laga waayo taadu waari maysa waxa waarista kaaga xaq leh ta kaafirka ah laakiin cadaalad ay la socoto saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii bixi karaya markaa waxay baxeen arsaalan iyagoo ah koox koox dhuumdhuumanaysa iyagoo ah oo aan xataa wada soconin dabeetana halkaa xeebtaa la ysugu yimi oo waxoogaaga kane ay iska heleen meeshaa markay isugu yimaadeenna doontaas bay raaceen iyagoo diintooda la cabsanaya oo xaggaasi qabtay dhibtu markay sii badatay xataa waxaa la yidhahdaa dadka loo fasaxay inay hijroodaan waxaa ka mid noqday markii dambe xataa abibakar baa isku dayay inuu ka hijroodo meeshan oo iskaga tago abibakar magaalada maku iskaga baxaa la yidhi dabeetana markuu marayay meel la yidhahda barkulkhimaad meel la yidhahda markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhahdo ibnu dakhina waa nin mushrik ah laakiin odaybu wuxuu u yahay qabiilka la yidhaha alqaara qaari waa qabiil xilfi wadaaga laba ahaa bani zahra nimanka la odhan jiray
qabiilkaasu sayidkiisa yahay abibakar oo soconayo safara buu arkay wuxuu ku yidhi ya abibakar ayna turiid xaggaad u socotaa abibakar wuxuu ku yidhi tolkay baa isoo saaray markaa waxaan doonaya ilaahay dhulkiisa inaan meelun isaga kocaan alle ku caabudo hortay bannaan baan u socdaa buu leeya abibakar faana uriidu an asixa fi lardi waacbuda rabbi inaan dhulka iska socdo uno meel aan ilaahay ku caabudon inuu tago ayaan rabaa ibnu dagina ayaa markaa la hadlay waxaanu ku yidhi ina miluk laa yakruj walaa yukhraj fainaka taksib اlmacduum wataصil الrixm wataxmil اlkal wataqri الضayf watuciina calى nawaa'ib اlxaq war adigoo kale buu yidhi abibakar uma baxo lamana saaro yani abibakar nin isaguna iska baxo oo luma ma aha nin tolkii saari karaanna ma aha waayo buu leeyahy adigu wanaag dhammaantii baad ka shaqaysaa weedhatan waa weedhii khadiijina ay ku lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo waxyooday uu baqayay waxaad moodaa inay tahay kelmad lagu isticmaalo dadka iska fiican weedhay carab isaga isticmaali jiroo kale inay tahay tii oo kaleu isna ku isticmaalo wuxuu leeyahay kaan waxba haysan waad wax siisaa qaraabada iyo raximka waad xadhiidhisaa kuwa culus ama dayn ama dhib ama mushkilad ku culus waad ka faydaa ka xambaartaa martida waad soortaa balaayinku dadka markay ku dhacaan waad ga gargaartaa nin waxaasoo wanaaga samaynaya waa fahal jazaau lixsaani ila lixsaani xaggee lagu saaraa ma aha buu leeyahy mid baxa anigaa dimadayda aad ku joogaysa anaa magangelyo ku siiyey buu yidhi magangelyo anigoo odaygii reer hebelah ayaa magangelyo ku siiyey ee noqo oo dhulkaagii ku noqo oo caabud rabbiga ninkani waa nin gaaleed caynkan leh dabeetana abibakar baa soo noqday isagoo ibnu dagina ay wada socdaan ibnu dagina markaa quraysh wuxuu u iclaamiyey ninkaasi waa magantayda carabtii hore qabaa'ilku waxay isticmaali jireen meesha wada degaa odayada qabiil ka tirsanay hadday cid magangelyo siiyaan waxay ahayd qolyaha kalena inay magangelo siiyaan haddii kale labada reer way isdilayaan waa nin reerka ka mid oo wax la yeelay oo kale sidaa ogeed wuxuu leeyahay anigaa magangelyo siiyey qurayshay dee sidaa ogaada waxaa la yidhi haddii aad magangelyo siisay annana waa ogolaanay magangelyadiisa ee ninkaasi gurigiisa haddaba wuxuu ku caabudayaa ku caabudo hana daayo halkiisa ha joogo laakiin yuu meelahaa kaga dhawaaqin waxaanu diidannahay muddo abibakar gurigiisii iskaga tukanayey oo meeshiisii iskaga cibaadaysanayey dabeetana gurigiisa finaagiisa banaankiisa yar hore daaradiisuu meel yar ka samaysto uu ku tukado halkaas baa abibakar intuu ku tukadaa buu qur-aanka kor u akriyaa markuu qur-aanka kor u akriyana xaafadaha iyo dadka meelaha maraya iyo dumarka iyo caruurta iyo waxaasaa kusoo ururoo la yaaba ninkan oo dhegaysta abibakar wuxuu kaloo ahaabaa la yidhaha rajulan bakaa nin oohin badan buu ahaabaa la yidhaha markuu ilaahay is hortaago subxaana wa tacaala hadduu salaad u kaco nin aada u ooya buu ahaabaa la yidhi oo aan ilintiisa haysan karin waaba tii caaisha lahayd markuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi abibakar far oo waxaad ku tidhahdaa dadka tuki waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa abibakar da isma xijin karaya e cid kale u dir bay lahayd idan abibakar nin aada u oohin badan buu ahaa markuu ilaahay is hortaago markay go-aan iyo talo tahayna markuu go-aan qaatana nin aada go-aan adag buu ahaa markay talo tahay waa ninkii keligii lahaa riddadu markay dhacday keligii baan la dagaalamaya saxaab o dhan bay haddaa iska hadhaana xaggana ninka hal adag buu ahaa laakiin ilaahay agtiisa nin kastoo muslim oo ad adayga hadduu ilaahay is hortaago ilaahay agtiisa waa wax yaroo sagiira walidalika abibakar hadduu ilaahay is hortaago ishiisa ilinta kamuu xejin kari jirin abibakar marka halkaasuu iskaga tukadaa ooyaa qur-aankiisa akriyaa qurayshi waxay ka cabsatay ninkani inuu raadeeyo dadkan dhegaysanaya iyo dadkan kusoo ururaya inuu raadeeyo waxaa lagu noqday ibnu dagino waxaa la yidhi dhegaysa ibnu dagino laba kala dooro ninkan inaad magangelyadiisa ka baxaysid oo isu kaaya daynaysid iyo dumarka iyo carruurta inaanu naga waalinay inuu gurigiisa ku noqdo oo hadduu doonayo gurigiisa wuxuu doonaya haka sameeye inaanu dabad ula soo bixin qur-aan la akrinayo ibnu dagina ku noqday oo wuxuu yidhi abibakarow dee labadaa midun baan kaa doonaya waa magangelyo waan ku siiyey laakiin dee ilaahaaga hoostaada isaga caabudo gurigaaga joog haddii kale magangelyadaydii soo celi oo carab de waxaa qoraysh kale helaysaan yeela markaas abibakar wuxuu yidhi jawaarkaaga heshiiskaagiina waa kuu celiyey ilaahay baan jaar la ahaanaya magangelyada allaan ku joogayana kala kaxe adna sidii buu joogay abibakarna wuxuu iska aqbalay inuu xamilo wixii dhib gaadhayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam
inuu joogaabuu u tilmaamay hijradii hore saxaabadaa hore hijrootay ee dhowr iyo tobanka ahayd dhowr iyo tobankaasi intay sii maqnaayeen ayaa maalin maalmaha ka mida buu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akhriyey wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiidu lquwa aayaadkaasuu akhriyey muslimiintii meesha joogtay oo dhammi way sujuuday mushrikiintii meesha dhegaysanayeyna way isxejin kari waayeen oo way sujuudeen laba ninoo ragga kibirka badan ka mida mooyaane baa la yidhi dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaamtay maalintaasi markay ishayn kari waayeen ee qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akhriyey ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeedi iyo dadkeedii waaweynaa maanta masaajidkii joogo o dham inta maxamed qur-aan akhriyey ayay dhammaantood wada sujuudeenoo dadba wada islaameen waxaa jira riwaayaad mursala xadiidka mursalkii waa xadiid uu taabici warinayo oo aan gaadhsiisnayn saxaabi mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakr ibnu cabdiraxmaan iyo abulcaaliya saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira oo isagu sheegaya in shaydaan nebiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu ku soo tuuray wax oo qiradii ay ka mid ahayd iyagu say sheegaya nebigu akhriyey in uu ammaan yari ku jirtay oo sanamada la ammaanayo oo tilka alqaraaniiqi alculaa waina shafaacatuhuna laturja weedho sheegaya inay ammaan u tahay asnaamta shafaacadoodana in la rajaynayo inay carab ku soo dhacday riwaayado mursalaa jiro iyagu daciifu sanadah oo sheegaya cibaaradatan in shaydaan yidhi oo ay mushrikiintuna maqleen muslimiintuna aanay maqal turtuuri la-aan wax ka jira aanay jirin waa qiso runtii aan sal caqiidada ku lahayn sida saxiihina waxay tahay uun suuradda tan inay isxejin kari waayeen niman carbeed oo luqada carbeed garanaya bay ahaayeen inay isxejin kari waayeen dhegaysigii suuradda tan sidaasi daraaddeed inay la sujuudeen calaa kulli xaal waxaa faafay war odhanaya quraysh baa islaamtay muslimiintii joogtay markaasi ardi alxabasha qayb ka mid a ama muslimiintii halkaa joogay war baa soo gaadhay odhanaya qurayshiba way islaamtay dabeetana waxay is idhahdeen dee dhulkiini iskaga noqdo mar hadday qurayshi islaamtay dhibtii way dhammaatay qoladii hore hijrootay dhowr iyo toban ka ahayd warkaas baa soo gaadhay dadkaasi markaa qayb ka mid ah ayaa ahlu taariikhu waxay yidhaahdaan ama ahlu siyarkubaa soo noqday oo uu ka mid yahay cuhmaan ibnu madcuun ninkii la odhan jiray waxay soo socdaanba markay maka yimaadeen ama duleedadeeda markay yimaadeen ayay ogaadeen warkaasi inaanu sax ahayn quraysh odayadeedii iyo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin waxay noqotay markaasi inay dib u xidhxidhaan haddana halkiibay dib uga xidhxidheen laakiin marka kan waxa ku darsamay baa la yidhahdaa raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dhibtii ku tiro badatay inay iska hijroodaan ayaa helay dad dee wada mareen oo meeshii soo maroo kala yaro garanaya wax dabeetana dad kaloo badan ayaa soo raacay ibnu isxaaq isagu wuxuu odhanayaa markan dambe dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen ibnu jariirna wuxuu leeyahy 280 nin iyo dhowr iyo 10 dumar ah ama 280 nin bay ahaayeen marka laga reebo buu leeyahy dumarka iyo carruurta dumarka oo qurana waxay ku sheegaan mar labaadkan dhowr iyo 10 inay ahaayeen calaa kulli xaal ahlu siyar dad badan bay sheegayaan markan dambe inay ahaayeen oo 80ka kor u dhaafay dadkan dambe dib bay u hurjiroodeen waxaanay qabteen iyaguna ardi alxabasha culamaai taariikh siday warinayaan waxaa la yidhaahdaa waxay qurayshi markaa tidhi waa dhib badan tahay in meesha intay isugu tagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaane nimankan warkoodu intaanu inugu faafin aan soo qabqabanno markaa 2 nin oo quraysh waa yeelkeeda iyo raggooda cajabta badan le ka mida hala diro boqorkaa xabashidana waa nagaashi boqorkaa xabashidana ha loo diro iyo bataariqadiisa yani wadaadadiisa kalarjiskiisa ha loo diro hadiyado tiro badan leh haynugu soo dirana hala soo qabqabto nimankaas iyagoo maxaabiista hala keena baa la yidhi waxaa la diray 2 nin oo mid yahay camar ibn alcaas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeyaan intaanu islaamin weeyaan camar ibnu caas waa ninkay ku tilmaamaan daahiyat alcarab baa la odhan jiray
nin aad u caqli badan oo maskax badan buu ahaa iyo cabdillaahi ibnu abi rabiica labadaasaa la isku daray waxaa la yidhi camarow nimankaa maanta meel kaga soo hoyo keen adigoo wada iyagoo maxaabiis camar baa yimi iyo ninkan kale la socda oo hadiyada wada oo boqortooyada loo sido boqortooyada tan hadiyadda loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka waxaanay weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kan najaashi wuxuu yidhi muslimiintiina bal ha laygu yeedho muslimiintii oo uu ka mid yahay jacfar ibn abi aalib baa loo yeedhay wuxuu yidhi bal hadla ka warrama ninkani waxaan buu sheegaya idinku diintiina yacni cadaaladdu way ka muuqataa durbaba waayo cadaalad darro waxa ah in cid quri intay cid wax ka sheegto lagu akriyo dabeetana xukunka lagu qaado cadaaladda waxay halkanba ka muuqataa ninkani inuu nin siduu nebigu u sheegay cadaalad garanaya yahay quraysh iyo odayadeedii iyo hadiyadaheedii iyo waxeedii intuu qaato oo warkii dhegaysto muu odhan inuun waa kuwa nimanka tolkooda iyagaa war badane kooxdan yaryari waa irhaabiyina hala celiyuna muu odhan ee wuxuu damcay in bal iyana waxay hayaan la weydiiyo oo la waraysto labada dhanba inuu afti ka qaado markaas buu ku yidhi muslimiintii bal warrama idinkuna jacfar ibn abi aalib baa markaasi hadlay wuxuu yidhi boqorow waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan sanamka caabuda baktiga cuna jaarka u daran wax kasta xalaashada badhba badhka iyaga uu dilo dhiigga iyaga aanu isbanaysanno wax naga xaaraanayna ma jirin wax noo xalaalina ma jirinee hor baanu isaga soconnay annagoo nooca u nool ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga tirsan oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa yacni nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo cahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baa naloo soo diray ninkaas wuxuu noogu yeedhay buu leeyahay ilaahay noo soo diray nebiga ahi inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanaan cidna ku lamaanaynin inaanu qaraabada iyo raximka iyo tolka xidhiidhinno inaanu jaarka u fiicnaano inaanu ilaahay u soonno oo tukanno inaanu cibaado yacni wanaag oo dhan buuna faray wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaasi hiraqal hal macaka shay-un mima jaa bih wixii uu idinla yimi wax ma ka haysaan yani waxyigan uu idin keenay qur-aankan aad sheegayso bal haddaa wax ka haysaan sheega wuxuu kaloo u yeedha la yidhi wadaadadoodii kristanka ayaa saaqifadoodiiyo wixii o dhan buu yidhi soo fadhiista jacfar wuxuu yidhi haa waan hayaa haluma fatlu calaya maa jaa bihi buu yidhi bal igu akri buu yidhi haddaba waxaanuu la yimi jacfar ibn abi aalib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa wuxuu ku akriyey suurad ka warramaysa muctaqadka iyagu rumaysnaayeen suuratu kahf ama maryama suuratu maryam ayuu markaasi ku akriyay kaafha ya cayn saad suuraddaasuu ku akriyay najaashi markuu suuraddii dhegaystay ee uu fahmay ayuu ooyey ilaa iyabaa la yidhahdaa gadhkiisa uu qoyey siduu u ooyayey wadaadadii kristankaee meesha fadhiyeyna waa ooyeen wuxuu najaashi markaa yidhi warkan aad sheegayso iyo warkii muuse la yimi meel quray ka soo wada baxeen maya warkii muuse la yimi buu yidhi meel quray ka soo wada baxeen say riwaayaddaasi sheegayso markaasay quraysh nimankii quraysheeda waxay arkeen inay jabeen markii la yidhi warkan uu maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ah iyo warkii nebi muuse sheegayay oo kale waa waxyi un meel ka wada yimi ayay waxay damceen inay ninkan camar ibnu alcaas la yidhaha waa daahiyat alcarab waa nin caqli badan sidaa inu ku tago muu dooranin wuxuu isku dayay bal inuu dhan kale ka soo wareego oo bal jalse kale la sameeyo wuxuu yidhi nimanka kani ciise waxa ugu xun bay ka sheegaan wuxuu ogyahay in kristanku ciise ay u haystaan inuu yahay ina ilaah ama ilaah uu yahay dabeetana wuxuu damcay inuu baabkaa ka soo galo oo baabkii ahaa nimankani waa niman xunxun oo tolkooda bay ka baxeen oo waa kaasu socon waa idan waa inuu iminkana galaa inay kristanka wax ka sheegaan oo idinkaba qaar wax idinka sheegaya inay yihiin wuxuu yidhi nimanka kani war xun bay ka sheegaan ayuha almalik buu yidhi innahum yaquuluuna fii ciisa qawla cadiima ciise waraadu xun bay ka sheegaan najaasha haddana u yeedhay wuxuu ku yidhi maxaa jacfar buu yidhi maxaa ka tidhaahdaan ciise
jacfar wuxuu yidhi waxaanu leenahay huwa cabdullahi warasuuluh وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول waxaan leenahay buu yidhi waa ilaahay addoonkiisii ciise waana ilaahay rasuulkiisii waa kelmaddii iyo ruuxdii ilaahay uu maryamo ku beeray saasaanu leenahay buu yidhi najaashi baa wuxuu yidhi maa cadaa ciisa bnu maryam mima qulta hada alcuud qori yar intuu qaaday buu yidhi qorigaa wax uu dheer yahay intaa adigu aada sheegtay ciise ma jiro dabeetana wuxuu amray boqorkii ammaan nabadgelye in la siiyo muslimiinta tan umu salama markaasa waxay leedahay faaqaamuu maca khayri jaarin fii khayri daarin ayay umu salama ku tilmaamaysaa xadiidkaas iyo sanadkiisu xasan yahay waxaanu degnay bay leedahay jaar kii u khayr badnaa kulle la darso dariskii u fiicnaa iyo gurigii wanaagsanaa baanu saa ku degnay riwaayaat saxiixihii waxay sheegaysaa wadaadada tan marka laga warramayo ay la fadhiyee ooyey majlisa najaashi inuu qur-aanba soo degay adkaynayo mas'aladan qisadani siday u dhacdo ilaahay leeyahy walatajidanna aqrabahum mawaddata liladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara dalika biana minhum qisiisiina waruhbaana waanahum laa yastakbiruun waida samicuu ma unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamc mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbana aamana faktubna maca ashaahidiin aayaddan qur-aan oo ilaahay leeyay dadka ugu dhow muslimiinta kalgacal waxa ay yihiin kuwii yidhi nasaaraanu nahay waayo waxaa ka mida qisiisiin wadaado iyo ruhbaan kuwa cibaado u go-ay waxaana yihiin baa ilahay yidhi kuwa aan iswaaweynaynin waxaad arkaysaa marka yani ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo ishooda ilini ay ka dareerayso waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayii quraysheed ee ahaa inay muhaajiriinta soo celiyaan inay ku khasaareen oo marka kan ay socon weyday muslimiintiina inay heleen meel ay degaan waxyaabaha runtii u fiirsiga lena waxaa ka mid ah mowqifkay muhaajiriintu caqiidadooda iska taageen may qarinin ciise manay ka warwareegin ee wixii ay ka rumaysnaayeen xaqiiqada ahaabay ka sheegeen iyagoo khilaafsan kristanka agtooda wixii saa'idka ahaa warwareegin ee wixii ilaahay uu ku ogaayay diintooda ku yaalay bay sidooda u sheegeen mowqifkooda xaqiiqada inay caqiidadooda ka run sheegaanna ahna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku nabadgeliyey oo hijradoodaasi meel fiican ayay ugu dhacday oo waa degeen waxaase iska dhib badan kollayba dhul qurba ah ku noolaantii iyagoo nimankani dhul carbeed niman ku noolo ay ahaayeen oo yimid dhul aan af carabi lagaga hadal ama aanay tol iyo qaraabo toona la wadaagin midab iyo diintoona aanay la wadaagin waayo waxay u yimaadeen najaashi ama dawladdii waa qolada tan xabashida iminka kuwan hadda haysta iyo haadhigu meesha ka yimaadeen weeyaan iyo kooxda tani waayo xabashidan cusub waa mililik iyo xayla salaasiya kuwan baa samaystay laakiin xabashidii hore waa qoladan iminka iyo haadhiga loo yaqaano ayay boqortooyadan lahaan jiray boqorkoodan horena wuu islaamay dadka laakiin in badan waxaa kaga qaldanta haddana boqorradii dambe ee uu nebigu waraaqa u dirdirayey mid dambe oo gaalabu kaasi ahaa laakiin kan hore islaamay waa asxama isagoo asxama waanu islaamay islaamnimaanu ku dhintay nebigaana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nacyigiisii markii lasoo sheegay isagoo madiine jooga saxaabadii waxay dareemeen un dhib aada u tiro badan leh dhibtaasi suuradeeda sawirkeeda waxayna kaga filan markii muslimiinta kale ay hijroodeen ee madiine ay tageen ayaa qoladanina mar dambay ka yimaadeen xabashida dabeetana waa la dooday cumar iyo gabadh la odhan jiray asmaa bintu cumays ayaa murmay oo ka mid ah dumarkii u hijrooday maka u hijrooday xabashida ka soo noqday markaasee cumar iyo baa waxay ku yidhahdeen annagaa dee hijradii nebiga idinkaga soo horreyno idinka xaq leh yacni nebiga annagaa hortiin u nimi oo dee muddo la joognay oo u gargaarayno la soconnay gabadhaasoo gabadh caqli badnoodna ahayd ayaa waxay ku tidhi markaasi kallaa wallahi kuntum maca rasuuli ma jirta bay tihi cumaro waxaad sheegaysaane idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo yucim jaa'icakum wayacdi jaahilakum idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo kiina gaajaysanna quudinayey
kiina aan wax garanayna wuxuu sheegayo wacdinayay annagu see dhul fog oo qurba abaanu joognay oo aan rasuulnana joogin cidinana wacdiday iyo cid wax noo sheegto kalena aanay nala soconin bay tilmaamaysaa yani qurbaday ka waramaysaa markaas ilaahay dartii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam diintii uu la yimi inaanu qaadanay daraaddeed baananu xaggaa u joognay waxaananu ahayn bay leedahay kuwo kunnaa nu'daa wa nukhaaf kuwo la dhibo oo cabsanaya baanu ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam warkoodii markuu dhagaystayna wuu u kala gar noqo wuxuu ku yidhi laysa biaxaqa bi minkum walahu waliasxaabihi hijratun waaxida walakum antum ahlu safiina hijrataan facaduma alfarxu bayna muhaajirati alxabasha xadiidka bukhaari ku yaalla waxa uu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam igama kiin awlaysana qolada tani cumar iyo kooxdiisu hal hijro bay leeyihin idinku laakiinse laba hijraa leedin buu leeyahay tii hore xagga u hijrooteen iyo tan dambe a madiine usoo hijrooteen ilaa ay aada ugu farxeen muslimiintii meeshaasi u hijrooday oo dhamme ala kulli xaal culamaai taariikh waxay wariyaan war aan min xayu sanad xoog u asaxin ama sanadkiisu aanu fiicnayn ahlilmakaaziguna ay sheegaan oo ah nin cubaydullaahi ibnu jaxash la odhan jiray oo ahaa ninkii qabay ummu xabiiba bintu abi sufyaan ee uu nebigu markii dambe guursaday calayhi salaatu wasalaam ee ummahaat lmu'miniin ka mid ahaa ninkaasi bay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay ciddii kiristaanowday intii uu joogay xabashida kadibna isagu xabashidu ku dhintay hadday qisadaasi saa u tahay qiso kalea jirta oo nin cabdiraxmaan ibnu khaalid la yidhahda uu ku jiro saduuq lagu tilmaamayo sanadkeedu xasan yahay laakiin adigu marka laisku wada daro waa la daciifiya oo xadiitaan uma sugna bay leeyihin kaasina wuxuu sheegayaa inuu nebigaba wuxu sii dardaarmay laakiin calaa kulli xaal qisada hore haddaynu qaadano hadday sidaasi u jirto inuu ninkaasi ku kiristaamay waxaad arkaysaa ummad kasta oo dhulkii diinteeda iyo dadkeedu joogay ka tagta inay u bantaallo in la ugaadhsado oo ay fududday markaasi in cidi ka daadato hadday dhacdayba in saxaaba badh laga ugaadhsan karay waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaalee tagtay oo wasat ama bia ama environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama kristan lagu haya ama waxaan lagu haya inay fududdahay in cid badani ka daadato waana cabsida runtii maanta u taalla dadka soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo oo weliba dhibta ugu badani ay tahay iyadoo dadka ugu badan ee joogaan ay dumar iyo carruur yihiin iyo dhalinyaro yani dadka ugu badanay jooga ay yihiin dad jilicsan ama dhibta labaadee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin ama mar labaad ay jirto dhul badan oo aan xataa dad diin u sheegiyo waxba toon aanay la soconin ee gaalown intay afka uga galeen ay iskala degeen in carruurta iyo dadka meesha ku kobca iyo aragtida iyo waxa ka soo baxa hadha uu kristan wada noqdaan ama diin laawayaal ay soo baxaan wax badan maaha inkastoo soomaalidu uu ka fakeraan qofku wuxuu cuno ma helaya kuwii xagga joogay se biil ma u soo diraya beledu doono isagu ha qaato markaasi ummu xabiiba uu ninkaasi ka dhintayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u khidbadeeyey yani ayaa guursaday oo najaashi u soo diray war in gabadha isaga loo guuriyo loo meheriyo nebigana loo meheriye calayhi salaatu wasalaam najaashi baana meherka ka bixiyey baa la yidhaahdaa sida musnadu imaamu axmed ku sugan isnaad saxiixa weliba iyo sunan abi daawuud ba yani xadiis saxay sida uu tilmaamayo 4,000 ayaanu meher ugu bixiyey isagu najaasha meherkana ka bixiyey oo 400 oo mehero bixiyey 4,000 oo mehero ka bixiyey waxaanu ku soo daray markaasi iyadii iyo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo daray saxaabiga la odhan jiray shuraxbiil ibnu xasna ayaa la soo raaciyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxba muu dirin hantidan tirada badan lana najaashi ayaa ka bixiyey waxaanu ahaan jiray kadib waxay mar labaad usoo hijroodeen madiine markii muslimiintu ay madiine degtay intoodii badnayd weliba kooxahoodii ugu dambeeyey oo jacfar ibnu abi aalib uu wadaana waxaabay yimaadeen khaybar markii la furtay ayay soo gaadheen laakiin intii ay meesha joogeen waxa kaloo ugu yimi koox kale oo saxaabo ah oo iyana soo hijrootay oo gaadhaya baa lagu tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo
350 nin ka kooban oo wato saxaabigii la oran jiray Abu Musa al-Ash'ari oo Yamana ash'ariyiina kooxda tan waxa la yiraahdaa Yaman bay ka yimaadeen dabeetana doontaasay soo raaceen waxay rabeen inay qabtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam doonyihii shiraaca lahaa bay hayda badda ku kacday dabeetana xeebtan xabashida ayay ku soo dul dhaceen markaas bay iska ugu yimaadeen saxaabadii kale halkan joogtay kadib baa la soo wada raacay hadhow ayay iyaguna yimaadeen Madiina markii dambe iyana laba goor bay markaa hijradoodii noqotay iyagoo markii hore u qastiyay inay Madiina qabtaan laakiin doonta aan batay ay geysay xabashida kadib bay xagaas ka soo hijroodeen taasi waa qisada ku saabsan xabashida iyo hijroodkoodii haddaynu dib ugu noqono markaasi Maka muddadan ay saxaabadani xaggan ku soo maqnaayeen iyo wixii dhacay waxaynu nidhi saxaabadii 80 dadka ka badani waa ka hijroodeen oo xaggan bay soo qabteen dadka intii ku hadhay hijroon kari weyday ama bixi kari weydayna sidii baa loo dhibay nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii meesha joogay sidii bay diinta u faafinayeen oo diinta u socotay dadyowga soo islaamay markaa waqtigaasi waxa ka mid ah ninkii la oran jiray Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab iyo qaabku uu islaamay waxa xadiis oo saxiix ah oo ku soo arooray ma jiro laakiin ibn Isxaaq ayaa wuxuu tilmaamayaa islaamnimada Umar inay dhacday intii xabashada loo hijrooday kadib yaani waliba hijradii koowaad dabadeed inay dhacday waaqidi oo ninkay dhowrka goor soo tilmaamanayna isna wuxuu leeyahay waxay dhacday sanadkii 6aad dhilhijja sanadkii 6aad ee bicfada waliba wuxuu leeyahay isagoo Umarna markaa nin 26 jir ah riwaayada waaqidi aynu leeyahay xadiistiisa lama qaato waxa uu oranayaa muslimiintu 40 ama 50 ama 56 meelahaas bay ahaayeen buu leeyahay duuduuba waxa ay arrinku ku kooban yahay Umar wuxuu ahaa nin xoog badan oo ragga wasniga ku leh magaca ku leh arab dhexdeeda kamid ah waxaanu soo islaamay waqti muslimiinta aad loo dhibayay oo adaagu ku dhibadna Umarna markii hore islaamnimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiiska saxiix ee mesela Bukhari ku yaala ee uu ka waramayo ninka la yiraahdo Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nawf ibn Nafil oo ah nimay ilmaadeeriyeen Umarna walaashi qabay Fatima gabadhii la oran jiray qabay Fatima bint al-Khattab gabadha la yiraahdo qabay ayaa wuxuu leeyahay wallahi laqad ra'aytuni wa inna Umar lamawt waxa ilaahay baan ku dhaartay buu yiri waxaan soo maro ay joogtay buu leeyahay la arkay iyadoo Umar uu islaamnimo daraadeed ugu xidho intii aanu islaamin yani intuu xidhay inuu ciqaabi jiray ninkana ilmaadeerkayina inaadeertiina qaba idan Umar wuxuu kamid ahaa dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu kamid ahaa dadka badna qisaska bad waxay isku xidhiidhiyaan marka ninkaasi la yiraahdo Sa'id ibn Zayd iyo islaamnimada Umar oo qisa ayaa jirta yana ana saxin oo sheegaysa inuu ku tala galay inuu nin dilo dabeetana isagoo maagmaagaya uu nin kale saxaabi yiri waraan Umar iska celina maanta oo yiri maad gurigiina islaamnimada ka celisid inta anaga nagu soo socoto oo maqlay markaasi ugu horeysay in walaashii islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodii uu yimi nabar uu ku dhuftay kadib waraaq quraan oo ay akhrinayeen uu ka qaaday طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سورة سيئة لكن ما أصحن يدنا قصة عمر لكن وحا كاغا فلان يسدو أضغط كاي إسلام نميدا وقف وقامر كهوري وحين سوق آدم دوننا مثلا وحا عبد الله قبض الله يراهدو ينين كيدو كامدا دادكي حواشيدا وهجروني عمر نين أضغطنا وها مرق قاركود نين حريش بدنا وها ayaa waxay leedahay anagoo guureyna oo xidhxidhanayno oo rabna inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay iga tagay oo uu ku maqan yahay yaani qalab urursigii uu ku maqan yahay anaan xidhxidhayo si baxaya Umar igu soo baxay bayt markaas iskay dultaag isagoo gaalkiisii wuxuu igu yiri bay tiri waana nimankii aanu dhibta kala kulmi jirnay bay leedahay Umarku
wuxuu igu yidhi bay tidhi xaggaad qabanaysaa miyaad tegaysaa bay tidhi innahu lilinطilaaqi ya umu cabdallah waxaan u malaynaya inaad safraysaan waa tegistiinni miya markaasaa waxaan ku idhi bay tidhi nacam wallahi lanukhrijanna fii ardi illah aadaytumuuna waqahartumuuna xataa yajcala allahu makhraja haa wallaahi baan ku dhaartee waa ka tegaynaa meeshan aad degantihin ilaahay dhulkiisaasaan u baxaynaa na dhibtoo nafta isugu kaaya keentaan ku idhi bay tidhi cumar calaacalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxay dabeetana wuxuu ku yidhi saxibukum allah allah idin dhowro ayuu yidhi o iskaga kay tegay bay tidhi gabadhii waxay ka yaro dareentay cumar inuu u naxariistay oo kale siibuu kaga tegey caamir baa yimi ninkeedii markuu yimi baan u sheegay bay tiro waxaan idhi bay tihi abaa cabdallaahiyow haddaad arki lahayd cumar maanta siduu u murugooday markuu arkay inagoo safraynoo baxayna wuxuu ku yidhi atamicti fii islaami nayaahe buu ku yidhi ma islaamnimada cumar baa ayaa hunguri kaa haya yani siduu u fogaa ninkan ma ka rajaynayo ma islaamnimada cumar ayaa hunguri kaa hayaa buu ku yidhi markaasay ku tidhi haa cumar islaami maayo buu yidhi falaa yuslim aladii ra'ayta xataa yuslima ximaaru lkhitaab kaad sheegaysaa islaami maayabay ayuu ku yidhi ilaa iyo dameerka khitaab oo islaamo mooyaane yani dameerkaasaa ka hor islaamaya cumar siduu u fog yahay waxaanu rabay inuu ka quusiyo arrintani waa qisaska waxaa iyagana soo wariya ahlu siyarku laakiin waxaa meesha muuqata gabadhu inay ka ra'yi toosnayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka sunani tirmidi ku sugan ee sanadkiisu yani uu tirmidi ku tilmaamay xasanun saxiixa inuu yahay waxa uu sheegayaa xadiidku waa saxiix ligayri calaa kulli xaal culamadu markay isu geegeeyaan waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay baryi jiray inuu ilaahay diinta tan ugu gargaaro cumar ilaahayna ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aqbalay dabeetana cumar wuu soo islaamay markuu soo islaamayna runtii wuxuu ka mid noqday arkaantii ugu waaweyneyd ee dadka muslimiinta ay ku tiirsadaan bale waxay gaadhay markuu soo islaamay in dadku masaajidka ay ku tukadaan iyadoon cidna dhiman ibnu mascuud ayaa xadiidka bukhaari ku yaalla waa kii lahaa maa zilnaa acizatan munda aslama cumaru buu yidhi maanan ka suulin buu yidhi inaanu dad sharaf le oo cize le noqonno sidii cumar uu u islaamay mar kale waa ka tilmaamaya xadiid طabaqaat ibnu sacad ku yaallo sanad saxiixa ku soo arooray laqad ra'aytunaa wama nastaiicu an nusaliya bilbeyti xataa aslama cumar falama aslama cumar qaatalahum xataa tarakuuna nusalli waxaa la arki jiray buu leeyahy waxaan soo joogay iyadoo aanan awoodin inaanu masaajidka ku tukan karno ilaa iyo uu cumar islaamay buu leeyahy markuu islaamay buu dagaalamay ilaa iyo ay naga tageen oo noo ogolaadeen inaanu ku tukan karno masaajidka mar kale xadiidu mucjam alkabiirka ku yaalla طabraani oo isna isnaadkiisu xasan yahay waa kale ibnu mascuud laftiisii ina islaamuhu kaana nasra buu yidhi diinta soo gelistuu soo galay cumar waxay ahayd nasri guul alle uu islaamka siiyey islaam mucjamkaasi cabdillaahi ibnu cabbaas waa ka isaguna sheegaya cumar isagoo ka warramaya xadiidkiisna waa xasan sanadkiisu cumar maalintii midida la geliye uu dhiman doono ee dambe khilaafadiisii markii midida la geliyo ibnu cabbaas isi soo dul taagay isagoo leh cumar buu la hadlayo wuxuu ku lahaa falamaa aslamta kana islaamuka cizan waadhara allahu bika alislaam warasuulu llahi waasxaabah markii aada islaamtay buu leeyahay cumarow wuxuu islaamnimadaadii horena ahayd casiiznimo iyo sharafti oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimada iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisiiba uu kugu kor yeelo kugu muujiyey cumar iyo siduu u islaamay haddaynu soo qaadano qiso shaahido cayaanu soo aroorinayo oo siirada ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq ba ay sanad xasana ku soo saaraan ibnu kaiirna uu leeyahay waaba sanadku jayid cabdillaahi ibnu cumar ibnu lkhaaab weeyaan inankiisii oo ka warramaya wixii dhacay markaasi uu cumar islaamay oo le waktigaa inan yaroo caqlilo wax kala garanayaan ahaa buu leeyahay
waliba waa meelahay ka soo qaataan yani islaamnimada cumar inay waqtiyadan ku beegnayd waxay ka soo qaadaan maadaama cabdillaahi ibnu cumar da wax kala garanaysa uu ahaa ghaswatu baderna raggii loo diiday oo hayo 14 jir ahaa yani inay waqtiyadaa ku beegnayd beder horteed inay ku dhacayso muddo aan 10 sano ka yar oo waqtiyadaa ku beegana waa meelaha isaga geeyaan yani qisada tani waqtiga ay dhacday markay xisaabinayaan culimada taariikh qisadan xadadkeeda da cabdillaahi yaray ku xisaabtamaan way cabdillaahi qisadan wuxuu inoo sheegi doonaa isagoo inan yara oo aabihii daba socday inay waxaan oo dhami dhaceen oo sheekada tan aqliyeynay waqtigii badarna inuu nin loo diidayba inuu uxud in dagaalka galo labada dagaal mid loo diiday midna loo ogolaado dhalinyaro inuu ahaa ala kulli xaal wuxuu leeyahay aabahay markuu islaamay ayuu wuxuu yidhi ayu qurayshin anqalu lilxadiid quraysh nin maa warkiisu dadka gaadhsiin og ii sheega ninka dadka ugu warkiisu yani wuxuu rabaa islaamnimadiisa inuu ka sheego iclaamka ugu weyne markaa quraysh dhexdeeda ka jira si dadoo dhamiba uu ogaado warka cumar aanu marnaba u qarsoomin markaas wuxuu leeyahay quraysh warka yaa u qaadi og waxa la yidhi buu yidhi nin la yidhaha jamiil ibnu macmar aljumaxi ninkaas buu ku kallahay baa la yidhi gurigiisii iyo xaggiisii cabdillaahi ibnu cumar wuxuu leeyahay faqadawtu attabic athara waandur maa yafcal waan soo dabagalay buu leeyahay aabbahay anigoo bal eegaya waxa uu sameeya buu yidhi anoo inaan abu cabdillahi wuxuu leeyahay wa ana ghulaamun acqil kula maa ra'ayt wiil yaroo wuxuu arkaba garan karoo fahmi kara baan ahaa buu leeyahay markii uu ninkii u yimi ayuu wuxuu ku yidhi buu yidhi aclimta ya jamail annii qad aslamtu wadakhaltu fi diini muxamed waryaahe buu ku yidhi ninkii war ma og tahay buu yidhi horta inaan islaamay oo diintii nebi maxamed galay ninkii lagu yidhi in quraysh oo dhan isagaa uu warka uu qaadi og ayuu warkiisii u sheegaya cumar oo caynkaasi ku yidhi ibnu cumar wuxuu leeyahay wiilkii isagoo hadlaya fawallaahi maa raajacahu xataa qaama yajuru ridaa'ah ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi hadalka kumuu celinin buu yidhi ee ninkii wuu istaagay isagoo maradiisii jiidaya buu yidhi xataa maradii aan saani u qaadanay isagoo marada jiidaya ayuu dhaqaaqay buu yidhi cumarna wuu dabagalay buu yidhi anna waan sii dabagalay buu leeyay yarkii xadiidka warinaya markaa saddexdoodii oo istaba socda ayaa qabtay xaggii masjidka wuxuu istaagay buu yidhi ninkii baabil masjid markuu marayay ayuu qaylo labada dhagood isqabtay buu yidhi isagoo le yaa macshara quraysh qurayshina markaa andiyadoodii meelihii reer waliba ama oday waliba majliskii uu ku lahaa masaajidka iyo halkii la kala fadhiisan jiray iyagoo fadhiya ayuu labada dhagood isqabtay buu yidhi oo le qurayshay alaa ina cumara qad saba cumar diintiinii wuu ka baxay saba waxay u isticmaalaan qofka diinta ka baxay diin kala gala yacni wuxuu leeyahay cumar diintiinii wuu ka baxo kaanama uu bidcoole noqday cumar baa isdaba taagoo le been buu sheegay ee wallaahi waan islaamay waashhadu an laa ilaha illa allah waana muxamadan rasuulullah saba aadan buu diidaya cumarna yani ninka diintooda ka baxay diin kala gala unba iskaga isticmaali jiray sida wuxuu leeyahy anigu diin kala gelisi ma jirte ilaahay baan ku dhaartay waan islaamay buu leeyahy dabeetana meeshiibuu ka ashahaatay wixii naadiyada fadhiyo dhan baa soo kacay markaa dagaal baa bilaabmay cumarna wuu dagaalamay dagaalkii wuxuu socday buu cabdillaahi ibnu cumar leeyahy xataa qaamat ishamsu calaa ru'uusihim ilaa ay cadceeddu kululaatay oo dadka madaxii yani cadceed kulayl baa laysla gaadhay sidii laysu dilayay markay cadceeddiina kululaatay dadkiina ka tiro batay ayuu markii dambe cumar daalay buu yidhi markaasuu iska fadhiistay ila waa magaalo dhan iyo nin qura dagaalamaya markii la isku cadceedsaday ee uu daalay ayuu iska fadhiistay buu yidhi way isdul taagan iyagoo ku xoomay oo weli la rabo in la sii dilo oo isaguna leeyahay buu yidhi ifcaluu maa badaa lakum wax allaaliya waxay idiin muuqda aniga waxba hay turinee sameeya faaxlifu billaahi an low qad kunna 300 rajul laqad taraknaaha lakum aw taraktumuuha lana waxaad doontaan yeela buu yidhi haynixina ilaahay baan ku dhaartay haddaan 300 oo nin gaadhnay ma ka wada deganaan mayna ama waa idinka saari ama waa idinaga saaraya saa doontaan yeela buu ku yidhi haddaan 300 oo nin helo maka ama waa idinka saaraya ama waa idinaga saari doontaaye waxba haynixina saa doontaan yeela iyadoo nabarkii sidii loogu boobayo isna sidaa leeyahay buu leeyahay wiilkii yaraayee daba socday ayaa oday dhar qurux badan sitoo xaragoonayo iyadii quraysheed ka mida baa soo baxay buu yidhi dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nukum war waa maxay waxaan dhacay ee lagu buuqsan yahay waxay yidhaahdeen sabaa cumaru cumar baa diintii ka baxay bay yidhaahdeen waar balukaadiya buu ku yidhi
ninkani hadduu naftiisa diin u doortay maxaa idinku ka rabtaan buu ku yidhi ma waxaad doonaysaa reer banu caday ibnu kacab waa qabiilku ka dhashay war reer hebel wallaahi baanu cumar sidaa idinkugu daynaynin haddaa cumar dishaan reer hebel unbaa istili doontaane ma waxaad rabtaan inaad reer hebel dagaalantaan buu leeyahy yacni cumar waa nin la garanayo reer hebel ninkaa inta halkaa ku dishaan idinka tegi maayaan ee ma waxaad doonaysaan buu leeyahy inaad reer hebel isgashaan haddaydan rabin reer banu caday inaad la dagaal gashaan iska daaya ninkan ha dilinay cabdillaahi yaroo xadiidka warinaya wuxuu yidhi fawallaahi lakaannamaa kaanuu hawban kushita canhu waxaad moodaysay buu yidhi maro saarnayd oo laga rogay una inay ahaayeen markuu ninkan intaa yidhi baa dadkii ku xoonsanaa dib uga istaageen cabdillaahi ibnu cumar xadiid kaloo bukhaari ku yaalla sida uu tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahay beri dambe aan aabbahay waxaan ka ogaaday isagu markaa dee inan yaroo waxaan dhacay uun gargaranaya buu ahaa beri dambe aabbahay wuxuu ii sheegay buu yihi ninkii inuu ahaa alcaas ibnu waa'il isahmi ninkii la odhan jiray caas ibnu waa'il camar ninkaynu sheegayna daahiyat alcaraba aabbihii weeyaan waa odayadii ugu adadkaaye buu ka mid ahaa laakiin markan uun ilaahay cumar waa ku bixiyey caas ibnu waa'il inuu ahaa odaygii caynkan yidhina markaa dambaan ogaaday buu yidhi radulficilkii ama jawaabtii ay qurayshi ka bixisay islaamnimada cumar jawaab aada u adag bay ilaa iyo baa la yidhaahdaa waadiga makiba dad uu dareeray rabay inay cumar dilaan xadiid kaloo musnadu imaamu axmed ku suganoo sanad saxiixii waxa uu sheegaya yani inay waadiguba dad inuu noqdo iyagoo raba in la dilo sanadku wuxuu sax yahay baa la yidhahda ilaa shurayx ibnu cubayd ninka la yidhaha lakin inta dambe waa mursal daciifa calaa kullin waxaa meesha ka muuqanayso sida xooggan ay isugu dayayeen ama loo maki u dareentay islaamnimada cumar riwaayaadka kale tirada badan leh inuu meele ugu gaban jiray qur-aanka inuu saan u dhagaysan jiray iyo in adeerkii iyo gabadha ay walaalayiin gurigooda inuu tago nabar ku dhuftay iyo kuwaasoo dhami waa qisas ku soo aroora ahlu siyar walmagaazi ay soo arooriyaan laakiin ariiq saxiixa aan ku sugmin midina waxse sii fog maaha inuu qur-aanka ka maqlo gurigaasi yani sanad ahaan un baynu leenahay ma xadiis ahaan un baana saxiina taarikh ahaan inay dhacday waa iska suurtagal wax sii fog maahana inuu cumar xejin kari waayo طaaha ma anzalna calayka alqur'aana litashqaa inuu dhagaysto oo uu xejin kari waayo uu islaamo qur-aankani ta'hiirka inuu ku sameeyaana wax fog maaha waxaynu tilmaamaynaa cumuuman un waa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu islaamkii faafinayey saxaabaduna aad ay loo dhibayey ama dhib tiro badani ay haysatay waktigaasi laakiin cumar uu islaamay waxa muuqata cumar nin adadag inuu iska ahaa oo keligii islaamnimadiisa ninkaa quraysh oo dhan ula badheedhay oo ku tukaday kacbada sida uu ibnu mascuud sheegayana inay sababtay markii dambe in la aqbalaba inay ku tukan karaan kacbada saxaabada tani laakiin haddana waxaa muuqata uun qurayshi inay adkaysan kari weyday inay warkan sii dhegaystaan dabeetana waxaa bilaabmay go'doomin cusub iyo afkaar cusub iyo qaab cusub waxaa bilaabmay ra'yiga gaalada maanta ay dunida ku wadaan mid la mid ah waxaan la yidhahdo cunaqabatayn dhaqaale in waddan ama dad ama bulsho lagu sameeyo ayaa la bilaabay in lagu sameeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cidda taageertaba gaal iyo muslim wuxuu doonaba ha ahaadee reer banu haashim oo dhami way taageereen gaalkoodii iyo muslimkoodiiba taasi waxay keensatay markaas in quraysh oo dhami ay isugu tagto in qabiilka iyo muslimiinta iyo inta raacdo dhan in cunaqabatayn lagu sameeyo in sha allahu halkaasaynu ka bilaabi doonaa berito wallahu aclam wabilahi tawfiiq